iyo mid shaati siyaasadeed uu wataa isu haysteen uu kani ka dilaacay rag ilma adeera oo isgarabsanaya oo wax tabanayana ay ku midaysan yihiin waxaa xusud mudan laba madaxweyne oo labadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka dambeeyey labaduba inay ku jiraan oo shirkan ay maaragtay wada leeyihiin marka dhinac marka loo fiiriyo waxaa la isdhihi karaa waa yididiilo cusub haddii cuqdadii hore iyo dhibaatadii hore ee iyaga u dhexaysay ay ka heshiiyaan inay u gudbi karaan arrinta soomaaliya oo ay wax ka qaban karaan laakiin waxaa la isweydiinayaa iyaga colaaddii u dhexaysay ma xallin karaan raggan hadda waa raggii shalay qoryaha isu watay waa raggii shalay is haystay waa raggii maaragtay magaalada muqdisho ay u kala xirneed madax soo noqday maantana raba inay mustaqbal siyaasadeed oo kale u gudbaan marka haddii ay fikirkooda national ka dhigaan oo cadaawaddii iyo isriixii iyaga u dhexeeyey ay ka gudbaan waxaad moodaa inay wax qaban karaan okay waa hadal aad u fiican waxaa la sheegaya qorshahan cusub inay wataan ururka weyn ee UPD ee hore u midoobay oo madaxweyne xasan sheekh uu maaragtay uu wato iyo himilo qaran oo ay wataan maaragtay sheekh shariif iyo asxaab kale waxay doonayaan baa la yidhi si awoodda waddanka gacantooda ugu soo laabtaan arrintaa maxaa ka jira haddii awoodda waddanka ay helaan ma laga yaabaa ragga kale ilaa 6 urur ama ka sii badan ay ku soo biray ama ku soo biiri doona inay daaqada ka tuuri doonaan ma waxaad leedahay hal urur ayay noqonayaan oo himilo qaran iyo xisbigan kaleeta ee madaxweyne xasan sheekh hogaamiyo hal xisbi ayay noqonayaan hal musharax ayay yeelanayaan ujeedadoodu ma sidaas ah walla kolley way isu yimaadeen ilaan waddankii 2 madaxweyne ka jiri maayaan hadday isu yimaadaan qof unbaa kasoo dhex baxaya ma laga yaaba inay ku heshiiyaan mise jalaafo ayaa laisu dhigi doonaa isleedahay ma u eka inay ku heshiin doonaan inay hal musharax inta noqdaan hal madaxweyne yeeshaan hal xisbi yeeshaan ma muuqato ifafaalaheeduna ma muuqdo inay imaan doontana ma cadda oo shaki weyn ayaa ku jira labada ninba waddankan ayay madaxweyne kasoo noqdeen way soo dhadhamiyeen khasaare iyo faa'iido waxa uu leeyahay hamigiina wuu ku jiraa oo inay hadda madaxweyne noqdaan ayay rabaan marka si ay u midoobi karaan ma muuqato waa laga yaabaa dhibaatooyinkan hadda ay kala kulmeen nabad iyo nolol ee xayiraadda safarada ah shirarka ay qabanayaan ah siyaasiyiintan la beegsanaya ah inay taa ka midaysan yihiin oo ay isleeyihiin war midaysan kasoo saara arrintan ah waxaa daliilku uga ah sawirka la wada galay kursiga hogaaminta cidda waa aragta marka jeer la fadhiyo kursi la fadhiyo qof ayaa hogaamiye ah labada madaxweyne waa isgarab fadhiyaan marka waad u jeedaa in uusan nina nin u tanaasulin laakiin sheekh shariif baa waxaa la yidhi murqo waaweyn baa inta badan ay faafinayaan taageerayaashiisa iyo dad kaloo arrimaha siyaasadda soomaaliya ka hadla arrintaas seed u aragta adiga sheekh shariif sheekh axmed waa nin runtii sumcad fara badan ku leh shacbiga soomaaliyeed dadka soomaaliyeed xilli adagna soo dhaafiyey waxaad og tahay 6 bilood ee ugu nabadda badneed soomaaliya marka laga tago maxamed siyaad barre kadib inuu isagu hogaaminayey kumeel gaar ah maxkamadihii ayaan ka hadlayaa marka hore kadibna waxaad og tahay soomaaliya inuu ka saaray kumeel gaarnimadii uu ku wareejiyey dowlad rasmiya oo la aqoonsan yahay xasan sheekh maxamuud marka shariifku taageero dal iyo dibad ahba wuu leeyahay beesha uu ka dhashay iyo dadka soomaaliyeed intubana runtii sumcad weyn ayay u hayaan waana dad qof dadka war ka iibin kara wax sheegi kara aftahan ah wejigiisu gadmayo nin culimo ah waa suurtagal laakiin laguma kala awood roona maanta muqdisho waa la saman yahay qof ka badan ma lahan waa seem qabiilay kasoo wada jeedaan marka waa un iska war iyo waa la yiri laakiin waa gartay laakiin axmed horta shaki kuma jiro nin sharaf iyo karaamo leh oo qof walba oo soomaaliya inuu cizeeyo ay ka mudan tahay laakiin taariikh ahaan weli ma dhicin taariikhda soomaaliya haddaan gadal ugu laabano madaxweyne ee soo laabtay mar kale soo laabtay marka sheekh shariif iyo xasan ma rajo ayay ka leeyihiin iyagoo ah rag lasoo tijaabiyey oo soo dhadhamiyey sa adigu ka tiri xukunka waddanka soomaaliya sheekh shariif iyo xasan labaduba madaxweyne noqdeen labaduba mar labaad ayay isu soo sharaxeen kuma aysan guulaysan siyaasadda soomaaliyana maantay ma ahan yaa dan u ah ma maxamedaa dan u ah mise xasan ayaa dan u ah yaa lacag haysta wey dabcan baarlamaanka lasoo xuli doono iyo sida ay u kasbadaan ama ay u kala lacag badan yihiin ayay ku xiran tahay marka qof iyo cod ma ahan waddankaad joogto ama waddankaan anigu joogo dadka isa sharaxa annagaa lacag siina sidaad og tahay hadda shalay waxaa lasoo bandhigaya xisbiga dimuqraadiga in ka badan 40 milyan oo dollar ayaa loo aruuriyey hal musharax keliya waddanka maraykanka shacabka ayaana dhiibay way iskugu faanayaan iyagaa soo bandhigaya lacagtii ma qarinayaan laakiin annaga baarlamaankeena ayaa lacag la siinayaa ninkii xil ribay ayaa lacag bixinaya 1 milyan oo dollar ayaa kursiga baarlamaanku gaaray
dad ayaa gaarsiiyey ninkii 1 milyan ku gatana ka badan ayuu codka ku rabaa marka yaa lacag badan ayay dabcan tagi doontaa طبعا waan gartay sheekh shariif waxa lagu yaqaanay nin maaragtay inta badan aan hadlin degan dadka madaxweynimo ka sokow iyo sharaf iyo qiimo ka sokow oday Soomaaliyeed oo hadaladiisa ay hadal miisaaman laakiin arintii Kismaayo say u dhacday wixii ka dambeeyay sheekha waxa laga dareemay ayaa la yiri xanaaq ayaa laga dareemay hadaladii ugu dambeeyay yiri waxa kamid ahaa in dadku ay ku dhex jiraan laba cadowgaas oo argagixisada iyo dawladda ma habboon tahay in madaxweyne sheekh shariif inuu arko dawladda Soomaaliyeed in ay tahay cadow isla markaana uu barbar dhigo argagixisada wadanka baabiisay wa hadalkaas horta anigu ma dhageysan laakiin hadal wanaagsan ma ahan midda kale waxaa xusud mudan cabdi naasir siyaasiyiinteenu markay hadlayaan qof u qora ma lahan hadalka ama khudbadda ama qof ka kontrola aad bay u yar tahay ninku asagaa wuxuu rabo qorta ama xataa nood ba asagoo wadan inta microphone yimaado wuxuu rabo sheegaa haddaad hadda ingiriiska qofka ugu hooseeya xil dawladeed hayo aad u tagto interview ugu tagto haye kuma lahan waa inuu permission helo waa inuu waxa ka hadlayo waxaad rabto inaad weydiiso waa inaad siiso waa inuu wasaaradda ay qusayso la tago hadal miisaaman inuu la yimaado way laakiin annaga dadka iyagu way iska hadlaan ninkan madaxweynaha hadalkiisu waa hadal weyn sheekh shariif maanta farmaajo un baa ka sarreeya madaxweyne hore sharaf leh ayuu ahaa hadalka uu ku hadlo marka waa hadal macno samaynayo way laakiin dadkii la talin lahaa ama siyaasiyiintii ama aqoon-yahankii ma ayagaan xilka loo ogolayn ma iyagaan hawshooda gudan karin ma naqaano hadda madaxweynaha dawladda markaad fiiriso ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo waa la isku dhahay xasan yahay wixii la rabaa la sheegaa hadhowdii unbaa dacayadu soo baxdaa hadhowdii laga qobomeeyaa hadda sawir waxaa jira madaxweyne farmaajo xafidahullah wa racaahu uu nin tuka la yidhaahda la galay dhallinyaradii madaxweynaha la joogta waxay ii sheegeen guri yar oo kooban in madaxweynuhu dadka ku qaabilayay duka inuu iska yimid xataa madaxweynuhu ma fahamsanayn inuu tuka yahay masawirkiina sidaa uu ugu dhacay ninkii goobjoog ahaa ay sheegay kadibna waxaa aragtaa ka dhashay laakiin haddii xafiiska brotokoolka iyo qofka madaxweynaha la socdaa uu il gooriya uu ku fiirin lahaa cidda madaxweynaha la kulmaysa cidda uu la hadlayo waxaani ma dhici lahayn marka waxaad moodaa isbarbaryaa badan inuu ka jiro xafiisyada dawladda iyo siyaasiyiinta waa runta aad u mahadsan tahay daawadayaal axmed cabdulle idaa waqaca weriye caan ah oo rugcada ah oo ku sugan waddanka maraykanka ayaan si toos ah uga wareysanaya arrimaha Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa mar kale in aad sii qaybisaan inta badan social media hadday hala Facebook iminkan ka hadlayno waxaa iskula jira geel jire iyo nin PhD haysto inaan iskuul tegin nin qabiil ka dhex guuxayo nin dhibaataysan qof walba qofka ku jira social media waxa looga baahan yahay jir adeeg ayaa looga baahan yahay haddaad mas'uul tahay waa ka sii daran tahay laakiin haddii aadan doonayn in wax laga sheego caayda tabcan mar walba waa mamnuuc caay waxa caaytama dadka maskaxdooda ee aad u yar tahay laakiin hadalka maanta ka soo yeeray madaxweynaheenii hore khayr allah siiye sheekh shariif wuxuu yiri caruurtan qurbaha joogta ee shilimaadka la siiyo u joojin mayno caydooda marka taas qof wax mas'uul ah uu ku hadlamaya sababtoo ah inagoo aan mas'uuliyad haysan maanta waxba aan ahayn ayaa har iyo habeen la soo aflagaadiyay laakiin dhig jalaq uma siino waan ka sii soconaa sheekh shariif hadduu rabo inuu madaxweyne ii noqdo waxaasoo kale ilmo yaryaroo meelaha ka soo hadlay waxaasoo kale inuu dan siiyaa mise inuu shaqada ka weyna waddanka uu sii wada hadduu madaxweyne ka noqonayo cabdilaasir waad mahadsan tahay waxaa xusud badan inay jiraan dad badan oo social mediaha ama facebooka twitterska snapchatka ku jira oo la leeyahay xaqiiqada ma hayno magacyo fara badan hadda ka hor aad kusoo qortay boggaaga facebook aad soo saartay la leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa budget siisa dadkaasi qof kasta oo dawladda ama wariyaha ahaado ama aqoon-yahan ha ahaado ama siyaasi hore ha ahaado ama qof iska caadi ah ahaado dawladda wax ku dhaliila shaatigu u siibtaa wuxuu rabo ka sheegaa marka horta taasi shaki ma lahan in ay jiraan dad anigu waa ka xumaa inaan iraahdo laakiin liiri waa qaaqlayaal waa dad la yiri lacag ayaa la soo siiyaa adigu marar badan ayaa beenisay waa lagugu eedeeyey anaa ku weydiiyey adaa bartaada facebooka ka sheegay laakiin dad waxaa jira sida la sheegayo lasoo abaabulo oo markii hore la sheegay inay kasoo farcameen xafiiska ra'iisul wasaaraha kadibna xafiiska madaxweynaha gaaray kadibna wasaaradaha kala gaaray oo u qaabilsan waxaan hadda ka hor aragnay hal commenti oo qof kasta lagu caayayo 10 qofood ay wadato cabdinaasir waa saas idaa waqaca waa madow yahay madaxa u xiran lagu soo caayayo oo hal commenti ah marka dhibaatooyinkaas way jiraan marka waa wax imaan kara laakiin madaxweynuhu mar walba inuu gaabsado inuu siyaasadda focus gareeyo
inuu nabadda iyo wadajirka iyo isu keenidda bulshada Soomaaliyeed sidii lagu yaqiinaba uu hore u sii wado waa wax muhiim ah horta waa qalad boqolkiiba boqol in madaxweyne iska daayay ex madaxweyne iska daayay qof bani aadana in maaragtay lagu aflagaaday social media laakiin dadku waxa iskaga qaldan laba arimood Axmed waxa iskaga qaldan dhaliil iyo soo bandhigid iyo aflagaado hadda maanta hadii la yiraahdo ninka ugu loogu aflagaadada badan yahay loogu dhibaateeyo ragga ugu badan waa ragga nabad iyo nolol tusaale ahaan waxaan naqaanaa iska daa ilmahan iyo kuwa qaaqlayaasha aad sheegto social media soo gala ka suko waxa jira dad magacooda ma sheegayo oo wariyaal oo rugcada adduunka laga yaqaan oo har iyo habeen madaxweynaha Soomaaliya waad ka soo horjeedi kartaa siyaasadiisa waad daleeli kartaa waxaad dhigi kartaa qaarad boo ku socda wuxuu sameeyay laakiin qoyskiisa waxaan arkay stage heer la gaaray maamadii qaranka maama Zainab oo hooyadii qaranka ama hal la jeclaanayaan la jeclaanin wax kasta oo madaxweyne farmaajo siyaasadiisa ay ahaato wuxuu doona ha ahaado ha qaldo maamadu waa hooyo Soomaaliyeed oo hooyada kala ah in dad qaarkood sawirkeed intay soo qaataan soo caayaan horta waa wax aad u foolxun oo dhaqanka Soomaaliya ku soo batay markaan ku leeyahay social media waxa soo galay dad aadan maqaayad la fadhiisan lahayn aadan la sheekaysan lahayn aadan is arki lahayn maaha inaad ka qubweyn tahay ama aad ka fiican tahay ama ka laandheeraysan tahay ma ahan haddii laysma fahmi karo adduunka waxay ahaan jirtay waagi dad qaarkood lama fadhiisan jirin marka laakiin waxaan kaloon aragnay madaxda markay hadlayaan mudane xasan sheekh oo kale wuxuu yiri raggii magacii hadalkiis kuwii madaafiicda haystay oo xabadda ridayay weli magaalada waa joogaan micnaheedu maxay tahay waxaad marar badan igu tiri xilligii la isu goodin jiray ama la dhihi jiray ma doonayo hadalka out of context inaan ka dhigo laakiin xilligii la isu goodin jiray ama la dhihi jiray waxaan soo lama soo dhaafin qofku markuu mas'uul yahay anoo kale haddaan hadlo micno weyn yeelan mayso qof civilian iska ahay meesha ka maraya laakiin ex madaxweyne ama qof mas'uul markuu yiraahdo hadalkan ah kuwii madaafiicda haystay oo xabadda ridayay ayaa weli jooga iyadoo xilligan Axmed oo dadka la iska duubo hadallada video wax walba cadeyn yeelan arintaas ma qurux badan tahay ma qurux badna laakiin nabad iyo nololna arrimaha oo kale ayaa ka soo socda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo Washington wuxuu ka yiri waxaan safaaradda Mareykanka aan ka iibinay ku dhisnay lacagtii lagu ridi jiray ra'iisul wasaarayaasha iyo gudoomiyaasha baarlamaanka waxaan ognahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo intii uu joogay gudoomiye Jawaari oo ahaa oday Soomaaliyeed siyaasi khibrad badan leh oo dadka hadda maanta joogo dhan ka wada khibrad badan in kursigiisii laga farmaroojiyay ninka hadda gudoomiyaha baarlamaanka ahina uusan u madax banaanayn maaragtay gudoominta baarlamaanka oo baarlamaan shiraahiba uusan jirin waxaan ognahay siyaasiyiin in guryahooda la weeraray waxaan ognahay in kuwa la soo xiray oo xabsiga ay ku jiraan dhinaca dawladda way ka socotaa handadaada iyo hadallada la isu gudbiyo way ka socotaa Axmed laakiin aan ka dhaxgalay madaxweyne farmaajo wuxuu yiri Ethiopia dadkii u shaqo tagi jiray waa soo xirnay ayuu yiri waa fact wax jira Soomaaliya marka isbedelka ka soo horjeed aan ka dhaxgalay Axmed ka soo horjeed nabadii nolol waxba dhibaato male laakiin runta hadii loo hadlo dadkii Ethiopia tagi jiray oo hariya habeen ninkii gabra la dhihi jiray hoos kaga jiri jiray sheekadoodu way soo afjareen tan kale waxa tiri baarlamaanka fadhiidka isla baarlamaanka miya daraa dhaweyd ka soo saaray arimahan ka hadlay oo fadhiistay warbixin ka soo daayay hadii baarlamaanka wuxuu noqonayaa adaa ugu yiri xataa magacyadooda ay qariyeen baarlamaan shiray oo arimahan ka hadlay ma hayn adaa ugu yiri su'aashan ku weydiiyay ma aqaano in la weeraray ka baqeen maxay la siyaasigii ka horreeyay la weeraray hadda qofkii baarlamaan oo shaqada parliamentarianka loo doortay qabta oo tolkooda u soo doortay qabta ma dawladda weeraraysa waa la weeraray cabdi qibdida la weeraray ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan waxba kama jiraan imaaraadka carabta isu tagaa weerartay qof walbana og yahay imaaraadka inay dawladda hoos yimaadaan waaye dawladda Soomaaliya ayay ku jireen ra'yadooda iyaga ayaa mas'uul ka ah markay ka gudbeen waa laga buriyay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin muhiim ah rabaa inaan kuu sheego yaad isleedahay hadda haddii la isu fiiriyo waagii wadanka aad joogtay wadanka dagaal xun ayuu ku jiray dhibaato ayaa ku jirtay dastuurka iyo sharciga ay kala dambeynta haddii la isu fiiriyo labadan madaxweyne ee soo maray wadanka oo hadda xisbiga samaysay qoladan hadda joogtay nabadii nolol yaa dastuurka iyo sharciga kala dambeynta isleedahay uu ka dambeeya cabdinaasir waxaa xusud mudan cabdiqaasim salaad xasan cali mahdi maxamed Siyaad Barre ayaa wadankan madaxweyne ka ahaa 1900 aan iraahday aadan cabdulla cismaan 60kii ilaa 67dii cabdirashiid cali sharmaarka 67 69 maxamed Siyaad Barre rabbi ha u naxariisto dhammaantood 69 ilaa 91 cali mahdi maxamed 91 97 ayuu horboodayay sidoo kaleeto cabdiqaasim salaad xasan 2000 ilaa 2004
cabdullahi yuusuf axmed allah u raxmado 2004 ilaa 2008 sheekh shariif sheekh axmed 2009 2008 madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2008 ilaa iyo 2000 iyo maaragtay ayuu xilka hayay sagaalkii haddeertaana 2017 aan idhaahdo haddeertaana maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa madaxweyne nin waliba meel ayuu soo gaarsiiyey magaalada muqdisho waxaan joogi jiray anigu iyadoo cali iyo ciidiid ay u kala xiran tahay salbalaara nagu soo biirtay sidii ay dhibaato u jirtay cabdiqaasin ayaa yimid nolol ayaa bilaabatay in qaramada midoobe la tago AU-da la tago jaamacadda carabta la tago safiir la magacaabo ilbaxnimo ayaa halkaa ka bilaabatay cabdullaahi yuusuf ayaa yimid cabdullaahi yuusuf waad aragtay madaxtooyada ayuu baneeyey madaxtooyadii la yimid halkaas ayay dowladnimadu kasoo bilaabatay sheekh shariif ayaa yimid heer ayaan gaarnay xasan sheekh baa yimid kumeel gaarnimadii aan ka baxnay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa yimid waxaan gaarnay heer aan ergeyga qaramada midoobe erino marka nin waliba waxbuu soo qabtay nin waliba waa soo dadaalay nin waliba meel ayuu dowladnimada keenay laakiin runta markaan isu sheegno soomaalidu ismana ciseeyaan kalamana awood badna waxa dadka isu nugleeya waa ciidamada shisheeye nin walba uu marka uu joogo uu dadka u adeegsado dowladda markaad fiiriso dadku adeegsado طبعا وامركيسه ku shaqeeyaan su'aasha kale oo daba socoto anoo ku dheeraanayna waxay noqonaysaa data akhbaaraadka jira haddii la fiiriyo oo runta oo banaanka yaala dowladdan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan khayre intay isla shaqeeyeen isla joogeen iyo dowladihii ka horeeyay haddii aad isu fiirisid inta ra'iisul wasaare la soo maray bal arrinta ma arki kartaa stability ragga inay keeneen waxay doonaan ha sameeyaan waa sharaf waa karaamo waa dadaal fara badan maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dadaalay ra'iisul wasaarihiisu runtii waa nin aad u adag waa nin maaragtay bahalka muxuu ahaaye waxaan aad ugu begay wasiiradii hore iyagoon waxba hayn ayay booto nafta nooga qaadeen saanaan irisaan xataa nin shir jiraa'id qaban karaa ma jiro dadka qaarkeed ha yidhahdaan waa kaliga talisnimo dadka qaar ha yidhaahdaan xor ma ahan waa kala dambayn waxa kaloo xusud mudan fikradaha la kala qaban kuu sheegaya in hadda intii xasan cali khayre joogay oo ra'iisul wasaaraha uu noo ahaa dhowr mar ayaa mooshin la keenay wasiirro ka tirsan dowladdiisa oo mooshinka ku jira ma maqal waxa kaloo xusud mudan wasiir hadduu iscasilo xasan cali khayre isla saacaddaas ayuu mid kale ku bedelaa marka dad kala dambeeya wada shaqeeya waxqabadku dhinacu doona ha noqdo isla socda isfahamsan aan kala shakisanayn way ku ammaanan yihiin runtii aad iyo aad ayay ugu ammaanan yihiin sharaf ayay ku leeyihiin waana sababta keentay in adduunku uu aamino waa sababta keentay in ay eriyaan ergeyga guud ee qaramada midoobay waa sababta keentay inay qalbi dhagax ay dib u soo celiyaan markii hore maadaama ay diideen waa sababta keentay kismaayo inay yidhahdaan lama aadi karo go'aanaha kasoo bixi jira dowladihii hore ma aysan fuli jirin laakiin wada shaqaynta iyo wadajirka ayay arrintaasi ku timid inkastoo dhinac kalena la leeyahay waa keligitalasnimo waa cunaqabataynimo qabiil ayaa ka dhex guuxaya waad ogtahay soomaalidu waxbay farsameynayaan marka qabiil ayaa ka dhex guuxaya axmed horta ereyadaas soomaalidu waxay tidhaahdaa ey baa cunay reer muqdisho dadka reer magaalka ey baa cunay yidhaahdaan horta sheekooyin qabiil baa ka dhex guuxay maanta way dhammaadeenoo mucaarada tolkood haddii berri la keeno soo buraanburaya ama xaflado samaysanaya taa muhiim ma ahan laakiin daytada akhbaaraadka la soo saaro iyadoo waddankan qori isku dhiib uu ahaa maanta qofkii xaqira ninka soo maray ani kulley waxaan dhihi karaa raggan iyo intii u dhaxaysay dadka aan aadka u ammaani kara waxay yihiin inta madaxweyne soo martay inkastoo la kala weyn yahay oo cabdiqaasin aan dhihi karo wuxuu ahaa qofka ma arkay ugu fiicnaa oo soo mar aan dhihi karo cabdullaahi yuusuf ilaah unaxariisto sheekh shariif aan dhihi karo xasan sheekh aan dhihi karo iyo raggii kaloo soo maray cali mahdi dayta aan haddii la fiiriyo hadda weliba cabdiqaasim wuxuu ku ammaanan yahay adigaa watay dowladdii ma mucaaradin gurigiisa etoobiyaan lagu diray gurigiisa la biliilqaystay xataa kama usa hadlin marar fara badan aan wacay anigu personal u wacay cabdiqaasim oon idhi ma hadlaysaa waa iga diiday wallahi cabdiqaasim sababta yeeshana waxay tahay ninkan wuxuu ka soo shaqeeyey admin shakhsi wax soo bartay admin yaqaana macnaha dowladnimada ayaa ka keentay marka waxaan rabaa maalintii la doortay cabdullaahi yuusuf waa joogay cabdiqaasim wuu hadlay caalamka wuxuu yidhi shalay markii la doortay waxaad ballan qaadeen inaad i taageeraysaan halkaanaad ku ballan qaadeen mana aadna i taageerin ninkaan hala taageeruu yidhi wallahi waa dowladnimada duuban I was there waa joogay hoolkii lagu doortaan joogay cabdiqaasim iyo markay isu wareejinayeen xilka iyo cabdullaahi yuusuf allah u raxmadeen
waxaan kaloo rabaa inaan kaa dhex galo first lady ayaad soo hadal qaaday runtii waa gabar sharaf badan aad aan u jecelahay waxaa jira qof jinnigiisa aad ka hesho anigu markaan arko waxaan badareemaaba khayr iyo farxad iyo naxariisaan badareemaa markaan gabadhaas arko haybadda ka muuqata sharafta ka muuqata asturnaanta ka muuqata waxaan dhihi karaa waa best first lady oo na soo marta ayaan dhihi karaa ilaahina xaafido hadalku ma jiro dhaqanka soomaalida diinta marka laga soo gudbo dhaqanka soomaalida wuxuu leeyahay dumarka lagama daba hadlo waxaan u arkaa dadkaas maamada wax ka sheegayaan waxay soo mari waayeen madaxweynahay soo mari waayeen madaxweynaha wax ka sheega waa nin raga madaxweynaha dhaliila laakiin qofkii maamo soo maro ha ogaada marka isna maamo u dhala maamada sharaf iyo karaamad keligeed maaha maamo kastoo soomaaliyeed xaasaska madaxda xildhibaanada qof kasta oo maamo ah sharaf iyo karaamo iyo naga mudan yahay soo mar marka waxaan rabaa ugu dambays inaan ku weydiin intaan ka gudbin qaybtan daytada haddii lasoo bandhigay la fiiriyey waxqabadkii isbeddelkii iyadoo qoridhibis uu ahaa waddanka uu ahaa maanta ma lagu ammaani karaa nabad iyo nolol in isbeddelka waddanka ay ka sameeyeen uu yahay midkii ugu weynaa ee lagu arko iyadoo dadkan loo soo dhisay aasaaska loo soo dhisay nabad iyo nolol waxaan ku ammaani karnaa go'aanka ay ka qaateen jaamacatul carab markii carabtu ay isdagaaleen in dowladda soomaaliya ay ka istaagtay mowqif dhexdhexaada dad isu midaba isu afa isaga kaaya dhow hal wadan isku ahaa jiray oo ayaka dhani maaragtay dabka kala qaata in dowladda soomaaliya go'aan ay ku gaartay oo ay tiri anigu waxaan ahay dhexdhexaad wayna ku qaybtay runtii maantay imaaraadkii waad aragtay iyo qatar iyo sacuudi arabiya maantay meel fiican ayaan joognaa runtii sharaf ayaanan ku leenahay dowladda soomaaliya waxay ku ammaanan tahay go'aankii ay ku erisay ergeygii qaramada midoobay inkastoo laga baaqsan karay haddana in mowqif aad leedahay go'aan aad leedahay oo waa wax wanaagsan dowladda soomaaliya waxay ku ammaanan tahay mowqifka ay ka qaadatay badda ilaa qaramada midoobay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafidahullah waraacaha uu geeyey shacbiga soomaaliyeed uu tusiyey madaxweynuhu in badda soomaaliya maxkamadaasi ay go'aan ka gaarto wada hadal dhuudhuumashow ah oo kenya iyo soomaaliya u dhexeeyaan labada madaxweyne u dhexeeyaan uusan jirin way ku ammaanan yihiin taariikhda ayaa xusi doonta wax wanaagsan ayay qabteen siyaasadda arrimaha dibadda ay qabteen siyaasadda arrimaha gudahana inay wax badan ka bedelaan maamul goboleedyada ay maroorsanayaan maamul goboleedyada ay isu dirayaan maamul goboleedyada maaragtay ay ayagu leeyihiin soola ama idaa waqac madaxweynaha ii noqda si aan u soo laabto 2020 ama 2021 inay iska daayaan oo shacbiga ay mideeyaan walaaltinimo laga shaqeeyo hadhowdiina nasiibkooda ay qaadaan waan gartay waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo adoo haddii aan ka jawaabi karin tabcan waad ii sheegaysaa haddii beri fursad lagu siiyo lagu yidhaahdo nimanka la kala yidhaahdo maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ninka la yidhaahdo sheekh shariif iyo xasan sheekh saddexdooda yaad u dooran lahayd haddii optionkaas lagu siiyo 2021 yaad ugu ridi lahayd sanduuqa waxaan ugu ridi lahaa nin kastato alkitaab wasunna wax ku xukumaya anigu madaxweynahaygu waa madaxweynaha qur'aanka kariimka ah iyo sunnatu maxamed nabad iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ku dhaqaya nin hadda ballan qaaday oo dastuurka soomaaliya waxaa ku jirta qodob la leeyahay wax kastoo diinta islaamka kasoo horjeeda kumanaan shay oo diinta islaamka kasoo horjeeda ayaana dhex taalla markii gabdhaha guryahooda la geeyo markii gabdhaha la biilo marka hooyooyinka xaqooda la siiyo marka agoonta xaqooda la siiyo ninkii ballan qaada inuu qaala tacaala iyo qaala rasuulullaahi nagu xukumo ayaa aniga madaxweyne ii ah kasokow waxaa madaxweyne ii ah ninkii awood milatari haysta soomaaliya maxamed siyaad barre siduu u xukumi jiray si ka daran nin u xukumaya oo wax allaala wuxuu awoodo naf iyo maal ciidan inta geliya soomaaliya saas u qabta nabad keena hadda waxaan shaqo galaa anuu 3 o'clock 4 o'clock ilaahay moogiya wax kale kama boqo nalka sometimes waxaa laga yaabaa 5 daqiiqo 10 daqiiqo inaan sugo kaligayna aan taaganahay sharcigaan ilaalinayaa xataa magaaladayda camera kuma xirna oo tigid ii soo diraysa laakiin waxaan is leeyahay sharciga ha jabin tigid ha qaadan balaayo dhanna waxay waddankan ka bilaabataa laysankaas maalinta 2 tikid 3 tikid aad qaadato baabuur oo dhan ma wadi kartid insurance-ka kacaya waa kala dambeydii sharciga ninkii nidaam iyo sharci keena ayaa aniga madaxweyne ii ah waa mahadsan tahay waan ka gudbaynaa shirkan Soomaaliya partnership forum kooda oo shalay ahayd iyo labada oo maanta ahayd ayuu wuxuu ka socday magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waana markii ugu horeysay ereygaas inkastoo dad badan uu aad u dhibo waana markii ugu horeysay waa fact waa wax jira marka waxay jiraan lagama gabado oo la keeno kii hore wuxuu ahaa Brussels sanadkii hore Luulyo iyo qof walbana wuu ogaa qof walba tagay xataa xilligaas waxa jiray ninkan la yiraahdo Faysal Cali Waraabe in uu aad u doonayay madaxweyne
farmaajo inuu isla sawiro xilligaas hadda wax isbedelay ma aqaano waxa ugu wardambeysay iyadoo la yiri Kismaayo ayuu u socdaa oo Muqdisho transit ku maraya marka iminka waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho konton wadan UN ta safaaradii wax walba ayaa isugu yimid ka waran guud ahaan muhiimadda ay leedahay shir noocan oo kale in wadankan lagu qabto aad bay u wanaagsan tahay waa wax fiican waa wax qiimo badan waa wax lagu faani karo inkastoo meesha shirku ka dhacay ee dawladda Soomaaliya xukubin shughul ku lahayd intuu ka dhacay Burundi xalan uu ka dhacay xalana dawladda shughul kuma lahan madaxweynaha la baaraa ra'iisul wasaaraha la baaraa Ahmed waxaan filayaa goorma ugu dambeeyay Soomaaliland tagtid may waa ku sheegay 2015 ka ugu dambeysay laakiin waxa uu xalana wax ka socda adna ma ogid farmaajana ma oga aniga madaxweynaha ma ra'iisul wasaaraha may hadda ma ogid ma geli karnaba naloma ogola أنا قالي بقول جر قالي مقدسه هرت ميلان إسكو بارين ماله مركز نوشن كدتك كذا دعيان وودن كلا ديار ده وماشي كسو دكتو ربورك إيشود دول مرتو أذكر كيسا وميل أي دقيقين سفارة ده الله إلاري لكن مدحوينها اللجوب بارا لو ما أقوله شغال حتى أديكو باس بريتش باسبور هايستي يعني جو يونايتد ستيت باسبور هايستا كم شقيت نلا كجماعة وقال أصل كنا سوماليا سببت محيطا سببت ما قارنه sababta waa inaan dawladda weydiino dad badan oo dawladda adiga ayaa u galan badan adiga dawladda ka tirsan adiga ayaa ma noo sheegi kartaa sababta gabar ayaa ka tagtay gabar Soomaaliya oo madaxweynenimo isu sharaxday oo sharaf badan ayaa ka ruqsaysatay markii ay xorriyad weysay markii baasaboorkeeda lagu cunsuriyay ay ka tagtay wad ogtahay Soomaalinimo loo cunsuriyay miya Soomaalinimo loo cunsuriyay Soomaalida ayada si jiraa'id qabat ayada si jiraa'id qabatay ayada ka soo ayada si jiraa'id qabatay waxa la yiri qof asalkiisu Soomaali yahay kama shaqeyn karo dood media gashay ma aqaano dawladda adaa iyo iyada ma tiri laakiin ayadu waa la eriyay ayadu ka tagtay waa shaqadiida gudu waay ma tiri su'aalan ku weydiina ma waxaad leedahay xalane oo ironically magac geesi Soomaali u yahay qof Soomaali albaabkaas kama geli karo kamana shaqeyn karo mana geli karo sida aan maqalna waay qof Soomaali oo ka shaqeeyana aanu ma arkin aniga xataa waxaan maqlay geel ayaa ku soo hoyday xaafadda niman luqadaha fasira oo telefoonada dhageysta waa laga yaabaa inay galaan laakiin ma maqal qof ka shaqeeya طبعا ايسي ود marka laakiin shirka meel aan Soomaali kamid ahayn marka shirku sharaf ayay Soomaalida u tahay qiimo gooni ay dawladda Soomaaliya u tahay konton dawladood 270 milyan oo dollar ayaa USAID kaliya ay maanta bixisay iyadoo ka dhigaysa deeqda sanadkan kaliya ay Soomaaliya siisay ku dhawaad 460 milyan oo dollar lacagtaas wixii lagu qabtay adaan noo sheegi doona ama lagu qaban doono sharaf ayay u tahay dadka Soomaaliyeed karaamo gooni ayay u tahay dadkii loogu talagalay inay shirka tagaan ee maamul goboleedyada ahaa waxaa joogay koonfur galbeed hirshabeelle galmudug gobolka banaadir iyo galmudug marka la sii fasiro gobolka banaadir waa jooga laakiin gobolka banaadir ma ahan state ma ahan haye iwat marka la sii fasiro koonfur galbeed dawladda Soomaaliya ayaa geysatay madaxweynihii joogay ee sharciga ahaa way ka farmaroojiyeen hirshabeelle sidaas oo kaleeto ayaa isagana waa madaxweyne meesha la geystay oo lagu ilaashanayo maamulka Puntland iyo Kismaayo oo ah Jubbaland labaduba way qaadaceen waxa iiga siyaa badneed haddii warkaasi jiro madaxweyne boqor Abdullahi Dani Saciid Abdullahi Dani wuxuu yiri madaxweynuhu 5 daqiiqo waa dhageystay la ima dhihin wuxuu yiri 5 daqiiqo ayaa la yiri comment ka bixi communique iyo warsaxafadeedkiina waaba sii qornaa waa sida madaxweynuhu sheegay codkiisa waad heli kartaa haddaad dhageysan oo ku soo diraya wuxuu madaxweynuhu sheegay inaan hore loogu sii sheegin shirka inaan lagala tashan in doorka kaliya oo ay ku leeyihiin baa ahayd 5 daqiiqo qodobada ay sii qornaayeen macnaa faalla ka bixiya ayaana lagu yeeriyo sidaas aan u tegin suuq aan ku wado Kismaayo waxay tiri madaxweyne Axmed Madoobe Axmed Maxaa Islaan wuxuu yiri shirkan sidaas oo kale ayuu sheegay laakiin wuxuu uga duwanaa wuxuu yiri kii Brussels-na waxba kama soo bixin dawladda Soomaaliyana ayadaa fara maroqsatay iyada ayaana dawladda Soomaaliya iyada dawladda maxaad ka wada ma fahmin Axmed xogaa waxaan filayaa wixii time difference aan yeelay dawladda Soomaaliya maxaa ka wada
oo dowladda Soomaaliya Puntland ma wadan kale oo Soomaaliya ka duwan ba mise Soomaaliya kamid yahay state maya waa wadan Soomaaliya kamid ah waa state Soomaaliya ka tirsan oo federaalka Soomaaliya laakiin iyagu war saxafadeedka labada dowladood ay soo saareen labaduba waxa uu qornaa dowladda Puntland iyo dowladda Jubbaland marka wixii su'aal ka qabto maamulkaas wixii su'aal ka qabto maamulkaas weydiinaysaa madaxweyne dani ana ka dhageystay asagoo leh dowladda Puntland madaxweyne dani wuxuu rabo dhigi karaa aan ku saxo harta mid aan ka saxo meesha waa state-yada waa 5 waxaana jira sida adiga aad sheegtay inaad aaminsantahay kala dambeynta iyo dastuurka iyo dowladnimada 5 majority-ga waa 3 haday 5 yihiin cod hadii la bixinayo waa 3 saddex la geystay waa meesha waxa soo haray ma yade makaara iyo waxa lagu geystay dabaabada lagu geystay uma geysanin dadkoodii ayaa meesha ka koonfur galbeed oo kale ha haye aan ku macnay marka 5 iyadoo ay jirto hadda waxa soo haray hal kaliya ayaa soo haray halkaas oo ah Somali State of Puntland ayaa soo haray markii ay soo hareen weli inaad ogtahay kala ma aqaan Jubbaland maya weli waa ku soo wada weli inaad ogtahay kala ma aqaan Jubbaland weli dowladda federaalka Soomaaliya iyo deeq bixiyaasha iyo wadamada dariska ma aysan aqoonsan sida iyaga yiraahdeen qaabka uu dhacay doorashada marka meeshan waxa banaanka soo istaagay oo la casuumay oo isla markaana diiday madaxweyne Deni inuu ka soo qayb galo laakiin hadaa war saxaafadeedka akhrisay communique-ga hadaa akhrisay communique marka la sameeyo ama qofku uu hadlayo meeshan kama jirto caleema saar iyo boqor in la keenayo wadanka waa wadan dimuqraadi ah qofka communicate marka loo sameeyo ama la soo bandhigayo qaabka loo hadlo waa wax la soo diyaariyo laga soo shaqeeyo laakiin haddii qof yiraahdo waxaan hadlaya 3 hours aan hadlaya waxaan ka sheekeynayaa sheekooyinkii geel loo raaci jiray taas Soomaaliya waqtigeedii adaaba sheegay kama soconayso marka waxaan rabaa inaan kuu sheego shirkan Soomaaliya ka dhacay umana istaagayo Puntland Jubbaland uma istaagayo majority-ga haddii majority-gu ahaan lahayd hal kaliya uu banaanka soo dhici lahaa waxa ma ahna laakiin hadda majority-gi waa 3 ayay noqdeen muhiimadda shirkina waa dhacay waan lagu heshiiyey Mareykanka lacag badan oo bixiyay dadka isku raacay marka meesha waxa ku lumay waa Puntland aysan ka soo qayb galin waa ayaan dara Puntland waa meesha ugu muhiimsan ee Soomaaliya inay ka soo qayb galaan ay ahayd wada Jubbaland they lost Jubbaland farmaajo ma aqoonsana marka waa nabadgelyo farmaajo ma ahan dowladda Soomaaliya iyo dowladahan bixiya taageerada Soomaaliya si kuwa dariska ma aqoonsana laakiin communique-ga hadaa akhrisay warqadda la soo saaray hadaa akhrisay in ka badan 10 goor ayaa waxa ku qoran Jubbaland halala hadlo Jubbaland hala soo celiyo wada hadal ha lagu dhameeyo wada hadal ha lagu dhameeyo wax walba waxay ku xiran yihiin ayaa la leeyahay maamul goboleedyada hala raadiyo hala midoobo way haddii caalamku uusan diyaar u ahayn arrinta iyada ah way intaas oo mar loogu soo celiyay hadda lacag waxa jirta Soomaaliya la raba in la siiyo oo u xayiran Jubbaland iyo maamul goboleedyada adinku midaysan waxyaalaha meel looga sheekaystay aan ku sheegayo nimankan maxay u xayiranta Ahmed aan dhageysana nimankan meeshii yimid waxay yiraahdeen arinta Jubbaland waa in lagu dhameeyaa xaal masuur iyo si degnaan oo wanaagsan oo sharciga waa in lagu dhameeyaa aniga halkan ma fadhiyo inaan difaaco dowladda federaalka ama Jubbaland baa qaldan ama Jubbaland ayaa saxsan laakiin adiga waa inaan halku heshiinaa Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin Somali Democratic Federal Republic ay ka mid yihiin markaan ku heshiino mid ay noqonaysaa shaki male haddii la yiraahdo aniga lagalma tashan marka dambe waxay noqonaysaa dadka kaaran idin degan inay yiraahdaan anaga lagalma tashan shaki male laakiin dad fiiri Cabdi Naasir Puntland iyo Jubbaland dad matalan baarlamaanka Soomaaliya ku jira ayaga gacantooda ku soo qoray qaybta ay ku leeyihiin taban iyaga keenay haddana iyaga keeni doona dowladda Soomaaliya oo xubinta ka yihiin dan ayay ka leedahay Puntland iyo Jubbaland dowladda Soomaaliya dan ayay ka leeyihiin waa lama kala maarmaan waa dad walaalo ah waa dad Soomaaliyeed yaan kala maarmin shacbiga Soomaaliyeed ama Puntland xirno ama Jubbaland ahaw ama federal ka tirsano waxa cajiib lama taqaana waa inaad nooshinka dadka laga iibinayo wuxuu yahay wadankii in oo cadowgii Soomaaliyeed ee dibadda iyo kuwa gudaha intay 0.5 iyo state iyo balaaye kala duwan ay kala dhigeen ayaa maanta Jubbaland iyo Puntland waxa loola xisaabtamayaa sidii Kenya iyo Ethiopia Jubbaland Somaliland Hirshabelle ma ahan wadan ka madax banaan oo banaanka yaala dadka waa runtii in loo sheegaa ma ogtahay waxay ka mid yihiin Somali Federal Republic oo la aqoonsan yahay oo federaal ay ka mid yihiin Somali Federal Republic ay ka mid tahay Soomaaliya madaxweyne u tahay Soomaaliya ra'iisul wasaare u tahay dadka xaqooda si waxay mudan yihiin si dastuurka waa federal waxa diiradda la saaray
aan ka sii gudub waxaa diiradda la saaray horumarinta bulshada dhaqaalaha nabadgelyada siyaasadda iyo cadaaladda ma la dhihi karaa waa meelaha ugu muhiimsan ee waddanku iminka u baahan yahay in laga dhiso si wanaagsan waa waxaan u baahannahay shacbiga Soomaaliyeed u baahan yihiin guud ahaan Afrika oo dhan u baahan tahay gaar ahaan annagu aan u baahannahay waxaasoo dhanna waxay imaan karaan marka maamul goboleedyada iyo dowladda ay heshiyaan la iswada raaco qolo waliba dhinaceeda ay ka fuliso go'aanadii la gaaray hadda Axmed Madoobe bayaankiisa waxaa ka mid ahaa inaan haba yaraatay la fulin shirki Brussels wixii ka soo baxay marka in shir la qabto in caalamku yimaado Brussels la fulinin ana qodob wixii lagu soo heshiyay lama fulin u yiri haddii wixii lagu soo heshiyay oo aniga aan doonayo hadduu yiraahdo Axmed Madoobe taas waa ka duwan tahay laakiin waxyaabo badan baa la fuliyay oo dawladda Soomaaliya waxna waa la fuliyay waxna lama fulin hadda ciidamadii oo kale lama dhisin ciidamadii mushaar lama siin goboladii lama ciidamadii mushaar la siin ciidamadii Soomaaliya oo lagu heshiyay gobol walba in intaas laga keeno wali yaa isku daray ciidamo qaran yaa dhisay maxaa la isugu dari waayay I don't know waa u baahanaa in la isku daro waa waxaan ku leeyahay waxa madaxweynaha ninkii ciidan keena aniga ninkaas nafteedii maalkayga baa saa iskala ma fahamtay صح gobol walba intaas ha keena leeyahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shanta gobol ee Soomaaliya ka jirta ee isteedyada ah Somaliland waxay bitiri anagu qadaadweynta lama jirno banaankan ka taagannahay ay yiraahdeen shantan gobol ee ka jirta waddanka siday doonaan ku yimaadaan ama sax ku yimaadaan maqalada ku yimaadaan haddii majority-goodu ay cod baxsadaan oo si dimuqraadi u baxsadaan ma kula tahay in isteedyada hare noocay doonaan ha aadan kama wada Jubbaland iyo Puntland haddii kuwa kale ay haraan waddanka ma iyagu sugaya mise waddanka hore u soconaya isteedyadu waa muhiim Cabdi Naasir waa muhiim in kasto isteed uu jiro hal magaalo kaliya ah oo magaalada ku xiga uu ka talin Jubbaland ka wada Jubbaland kama wada isteedyo badan ayaa jira Jubbaland meelo badan ay ka talisaa isteedyo badan ayaa jira isteedyo badan Soomaaliya ba hadda dawladda dhaxba hadda filo Soomaaliya maamusha iyo wadada Makka al-Mukarrama macna waddanka waa kala qaybsan yahay iyo diyaarada ay u raacday xalan ku daray loobin waddanku waa kala qaybsan yahay ma fahamtay marka laakiin marka Brown ahaan aan fiirino magacyaalkaas la fiiriyo wax walba waxay ku fiican yihiin gacmo gel jira hoos ayaa loo dhaqaa dawladda Soomaaliya waxa la gudboon madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Allah xafido ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wasiiradiisa mudanayaasha baarlamaanka inay xil iska saaraan waddankan nabadeeyaan bulshada dhex galaan u tagaan la hadlaan waa laga soo reebi karaa maamul goboleedyada nimankan maamul goboleedyada horboodaya haddii la tuso Kismaayo hadda maanta waxa la leeyahay qof Kismaayo jooga ila hadla dhibaata ka jirta naagihii umulayay dhibaata haysata daawooyinka isbitaalada daawo ma leh oo maxaa ku dhacay daawo diyaaradii la joojiyay taglaha waa la joojiyay Axmed aan ku joojiyay marka meesha waxaan ka joojiyay xaalad bini'aadanimo oo xun ayaa ka jirta Axmed taas aan ka joojiyo xaalad bini'aadanimo xun wax walba way qaliyobeen diyaaradii waa double ticket xamar la tago la soo laabta hadda Axmed arintan waan ka hadalnay arintan waxay keenaysaa in simplistic laga dhigto horta dadkeena walaalaha ee Jubbaland ku nool marnaba qof ku farxay ma dhibaato ka soo gaarto Axmed Madoobe hadii la nacay gabadha xaamilada oo af madow u lugeynaysa oo halka Kenya ka galaysa maxay galabsatay maxay hadlaysay Axmed ima maqlaysid as maqalno ani waxa ma ku leeyahay dadka oo walaalaheena ah ee reer Jubbaland dhibaatadooda qof ku farxay ma jirto laakiin waxaan ilownay in waddankii as a sovereign nation waddan madax banaan maanta la yiraahdo hal qof oo dhibaato soo gaartay ee waddankii sovereignty arintan waxay ka timaaday dhanka Kenya ka timaaday dadka koonfurta Soomaaliya ka soo baxay ilaa iyo Puntland iyo meel kasta ka soo baxay marka wajeer lagu celiyo oo maxaa arintaas looga hadli waay oo hadda loo leeyahay arintan waxay ka dhacday inta iyo waa sheekadii la dhihi jiray wayna ka dhici jirtay arintaas waa laga hadlay madaxweyne Xasan Sheekh xataa maalmo jaadka joojiyay waa laga hadlay wax ma ku sheegay waagi goorma la soo daayay goorma wajeer la joojiyay in diyaarada istaagto wada hadal Xasan Sheekh dawladdiisa ee bilowday ayuu ahaa kadibna Farmaajo ayaa ku guuleystay haddana waa la xiray meeshadii hadda joogtaa maxaa loo xiray marka ma waxa loo xiray siyaasad xumada loo xiray horta qof difaacaya ma jiro dad inay ku dhibaatoobaan laakiin haddii aad leedahay dadka Puntland ilaa iyo koonfurta Soomaaliya transitka ku mara magaalada Wajeer waa Soomaali aan laandheere ahayn kuwa Jubbaland ay ka laandheeraysan waa toos in loo siiyaa taas waa waxyaabaha dadku ay isticmaalaan waxa kaloo la isticmaalay aan aad ula yaabay rag mas'uuliyiina ay yiraahdeen airportkii dekadii Sheekh Shariif uu furay maanta inuu ka dhoof in loo diido
waa ayaan daro taasna waxay ku tusaysaa sheekh shariif waxyaabo badan waddanka u qabtay nabaduu keenay wax walba laakiin aeroboortka qofka furay iskama leh aeroboortka Somali nation ayaa iskale anagoo dhan ayaa wada leh qof walba ayaa leh sharci loogu diiday ma noo sheegi kartaa maya de sharciga intaanan u gelinba qof kastoo Soomaaliya aeroboortka wuxuu ka leeyahay laakiin micnaheeda ma ahan aeroboortkan la yiraahdo Ronald Reagan International Airport ama George Washington wuxuu ahada la yiraahdo reerkiisa ka soo dhoofaan oo waxay doonaan ku sameeyaan ma noqonayso waxay noqonaysaa sharciga iyo kala dambeynta iyaga la sheegay marka arintan program waan ka sameeynay waqtigana waa gaaban yahay waxaan rabaa inaan ka dhaadhiciyo dadka reer Kismaayo ama Jubbaland ku nool in marnaba la libaateeyo ma ahan way tirsanayaan tabcan laakiin in la yiraahdo ma ahan gabar baa ku umushay daawooyinkii baa inta ugu dhacay ilmo badan ayaa dhiciyay ilmo badan hooyooyin badan umul raacday maaragtay isbitaalkii marxalad bini'aadanimo ka jirta intee ka iman jireen daawooyin xiran meelo kala duwan ay ka iman jireen meelo kala duwan ay ka iman jireen tusaalana si tusaalaha Soomaaliya ka iman jireen Kenya ka iman jireen waxay ka iman jireen Carabaha Dubai ka iman jireen wixii dhan waa la joojiyay ما جت مية ديارتك ما ما وحال ير حمر هلا يمادو وحي وقاليو بين هدي حتى تجان عبد الناصر ودتك حمر كدولاي وتجاينا نيروبينا أو جر مراي ما أيضا هو دبعتك له أيضا هو دبعتك لكن هذا وطن كان مو بعد نقبتين يسامر والبوجو ما نقبتين وحلي هذا هو إري أو أي أبابولين سياسيين دون إن يحكوا لابتان وحنا بقينا كوي ديو سفارة دا سومالي وطن كمريكا كوحل الحريسة كورقبتيت شنتي جنايو كم شغال بقول سكاشن إيه كوي أو إلهي عن كبرين إنه سنقعدين سيدان هذا الكل شيء maanta oo October 2 ay tahay ayaa dib loo furay wadanka Mareykanka waa wadanka adduunka ugu muhiimsan Soomaaliya billions of dollars ayuu siiyaa marka arintan ma la dhihi karaa waa siyaasad wanaaga Xasan Cali Kheyre iyo Farmaajo iyo dawladdiisa inay Mareykanka safaaradooda ay soo celiyaan isla markaana Soomaaliya horumar aad weyn u keeni doonto mise arintan waxay soo bilaabatay 91dii عبد الناصر آد بدو ما سنتهي وسؤال مهم وأنا رنتي أرين آدي آد مهم برشة الصوماليات شرف كرامة حفيز كسياسة دالك أمريكا كسنة كي نجد بيشي ديسمبر أيا هرتا إرجع على فري لكن لبكون يسددي أيا دولة أي أمريكا وحي أقنصدين دولة الصومالية وحي كهري صوماليا دولة وما يسن أقنصدين لكن وحي دولة نبأ أقنصدين لبكون يسددي مركا 2008 ilaa iyo maantay waxa socday dadaal wada hadal in Washington aan ka furano safaarad maaragtay dalka ugu badan ee Soomaali caawiyana waa Mareykan waa ogna dalka ugu badan ee Soomaali caawiya Mareykanku nagama harin 1991 safaaradda hal xiro laakiin madaxweynihii Mareykanka H.W. Bush ayaa tagay John Kerry ayaa 2013 tagay Soomaaliya Jandayo Fraser ayaa tagtay oo wasaaradda arrimaha dibadda xil weyn ka haysay safiirka Mareykanka oo safiir aad awood u leh Momato ayaa hadda joogo ku hida runtii dadaal fara badan waa xilligii Obama waxa safiirku ugu horeeyay oo rasmi ah ayaa Obama magacaabay 2008 in uu u diro Soomaaliya marka waa howlo soo socday maantana waa howlo xoogaystay oo dawladda Soomaaliya lagu amaani karo oo ay sii dhamaystireen safiirka Mareykanka ee Soomaaliyana wuxuu yiri waa arin taariikhi ah oo u dhaxaysa labada shacab ee Soomaaliya iyo Mareykanka waa wax lagu farxo inaan maanta Soomaaliya markaan taga hadii baasaboorkaygu uga dhaco aan safaaraddeeda tagi karo ku dhufsan karo hadii ilma halkaas igu dhashaan ilmahaygii safaaradda la geyn karo maaragtay tahsiilaad aad u fara badan hadii dhibaato ay dhacdo halkan ilma lagu qaataa wad ogtahay dad baa lagu xiraa in uu jiro connection dadka Soomaaliyeed iyo dalka Mareykanka u dhaxeeya waa wax weyn aw Nairobi la tago hotel aad degto wareer badan hadaad visa qaadanayso dib kale aad sii marto runtii waa arin aad iyo aad muhiim u ah diblomaasiyiinta shisheeye ee Soomaaliya joogta Mareykanka u soo socota naftirkooda markay rabaan inay shir ama ka qayb galaan ama maaragtay waa wax badan oo faa'iido aan la soo koobi karin ayay u leedahay waqtiga ayaa nagu dhamaaday waxaan rabaa su'aasha ugu dambaysa inaan ku weydiiyo inta badan adiga nothing personal adiga iyo dad aad kale u fara badan waxay dadku ka dhaadhiciyeen oo yiraahdeen dawladdan Xasan Cali Kheyre iyo Farmaajo ee ka shaqeysa Villa Soomaaliya ilaa iyo ka shaqeysa tiraahdeen airportka isla markaana visa u qaadata xalana u qaadata laakiin haddii aan la iska indhatiraynin Axmed adoo aad u mahadsan haddaan la iska indhatiraynin Xasan Cali Kheyre wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii waqtiga ugu badnaa gobolada dhexe oo meesha Soomaaliya ugu muhiimsan ah oo hadda sheekooyinkooda la soo afjarayo waqti geliyay tagay gobolada South West Somalia ama
siyaasiyiin qaarkood say u yaqaanaan bayi bakool oo aan ahayn uu tegey waxaan aragnay madaxweynaha oo puntland ee jubbaland waqti badan soo geliyey waxaan aragnay amaradooda meeshay doonaan ha ka dhacaan waddanka inay shaqaynayaan marka soo lama gaarin waqtigii dadka qaarkood ay u arkaan soomaaliya inay tahay farmaajo iyo khayre dad xataa waxaan aragnay kala sabtay kenya ayaan aragnay soomaaliya marka lasoo fiiriyo marka ma la baran karaa ma la gaari karaa xilligii la kala saari lahaa soomaaliya iyo xasan cali khayre iyo farmaajo waayo raggan waa individual waa shakhsiyo meesha jooga berin la bedeli doono ilaan meeshaan boqortooyo maan hadda waxaa idinka maqlaya amaan dambe boqor deni iyo waxaas inaad keenteen waddankan waa republic waaye wax boqor la yidhaahdo ama ina adeer la yidhaahdo oo kursi ku imaanaya ma jiraan marka at least credit ma siin kartaan dadkiinan dowladda ka soo horjeeda har iyo habeen ee fadhiya aad tidhaahdaan soomaaliya waa soomaaliya oo callan leh raggaana waa madaxdii maanta berri way tegayaan laakiin ninka maanta sidan u qaylinaya oo mooda haddii soomaaliya baddeeda looga guulaystay inay fashilmeen khayre iyo farmaajo u yahay dadkaasoo kale sidee wax looga dhaadhicin karaa mise waxaanu doonaynaa in dhoolihii xanaaqsanaa iyo ninkii kale ee maaragtay oo jaceylka la xanaaqsanaa horta anigana ugu shabayso dowladiid ma ahan dowladda mana diidani waxaa dowladda kasoo horjeeda dowladda kasoo horjeeda dowladda villa soomaaliya waxaa tiri iyo maya waa kuu sheegaya waaba ku leeyahay waa kusii marka waad aaminsantahay soomaan axmed waxaad aaminsantahay dowladdan soomaaliya hadda ka dhisan maka almukarama ilaa iyo villa soomaaliya aad aaminsantahay sooma adiga waddadaasi dowladdu ka talisaa waddadaas ayay awood ku leedahay waddadaas ayay joogtaa khayre xudur iyo baydhabo iyo godin laba iyo tegay ma viisu qaatay xudur iyo baydhabo nin kastaa tegi karaa xudur iyo baydhabo wadahadal ku tegey waa loo yeeray tusaale ahaan markaan hadda fiirino markuu tegey galguduud meeshii uu tegey kadib khilaafaa dhacay wuu soo laabtay nin la martigeliyey dadka soomaalida way isdhex galaan way ismartigeliyaan way isu tagaan رئيس الوزراء وايه لكن كما تاني حكم كيسونا كما سعود ماشا يا حكم وضعك مركا maamul goboleedyadaas joogay nimanka ahlu sunna la yiraahdo kooxda ahlu sunna la yiraahdo kooxda kaliya oo guud ahaan Soomaali wadankan Somali Republic of Federal yaa xukuma sidiisaba wadanka dawladda ayaa ku magacaaban dawladda madaxweynaan leenahay ra'iisul wasaaraan leenahay ra'iisul wasaaraan leenahay madaxweynaan leenahay baarlamaan ayaa doortay sidoo rababa ha ku yimaado laakiin dalka kama wada taliyaan meel shabaab haysta meel waxaa haysta maamul goboleeda haysta meel ahlu sunna haysata meel dad iska kala qowlaysataa haysta waa meel sidaas waa iyaguna meelay ka taliyaan iyagana ma kala mukarram meesha ka taliyaan ayaga meelay ka taliyaan iyaguna meelay joogaan aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkii qaaliga ah axmed idawqa axmed ma ahan raggan lagu shaabadeeyey wariyinima ma ahan axmed waa nin ka soo shaqeeya warbaahinta ugu waaweyn ee Soomaaliya in maartay fikirkiisana aan la leexan oo dhiibta oo diyaarsan oo aan ahayn raggan hadda Sheekh Shariif maanta uu ku yiri caruurtan Facebook ka soo caytay in caytay ma ahan ahlu diina sharaf leh karaamo leh ra'yiga waa kala duwan Axmed sharaf iyo qiimo ay tahay aad u mahadsantahay waxaan rajaynaynaa insha Allah wadankiina Mareykankana in madaxweyne fiican oo maartay Soomaaliya u sii fiican kan hadda kulay ninka ugu fiican ayaa la yiri inuu yimaado marka Axmed aad ayaad u mahadsantahay asxaabta qiimaha qaayaha la idinkana daawanaya meel baad ka joogtaan waa maasantihiin wixii ra'yi ah solarportal@gmail.com raalina ahaada haysdihina ma aragtay nothing personal wixii la sheego waa different opinion laakiin maxay ahayd ereygii adaa Soomaaliga badiya dawlad xumo maxay ahayd ii sheeg dawlad la'aan ay dhantaa waa kaas wabillahi tawfiiq hadal maxamed siyaad barriiri uu yiri dagaal wiila ku dhashay wiil kuma dhasho kuma dhinto wiil baa ku dhashay biyo sacbada looga dhargaa Allah inkastoo hadda loo bedelay biyaha khayre iyo farmaajo sacbada looga dhargaa waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرف قوني أيها عبد الناصر إسماعيل أدبد وما سنتهي وحنا رجينا يا إن البرنامج كلا حلقا كلنا أدبنا كجمع علينا يا فرصة قالجة إيسي سينا خير الله كوسي